waxay yiraahdeen waxaa next oo kugu xijireenaa ninka la yiraahdo cunaan model maadaama uu yahay majarteen marka waxaa dhacday ina ay soo wareejiyaan askari la ii geeyo askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad waa lii dhirbaaxayey waa lii feerayey kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo kadib in la ii geeyo ninkii ahaa axmed rashiid markii la ii geeyo asxaabta qaaliga ah waxaa idinla hadlayo oo nasaan u dhaawacan waa maxmaamin yaxye asxaabay waxaa igu dhacday arinkii la ii dilay waxaa waaye maadaama aan cadaalad iyo xaq ka hadlay oo aanan ka hadlay runta jirto ee sharma boy iyo daaq darji loo geystay waxaa dhacday maanta markay saacad maraysay halka saaca haweenimo waxay soo wacay dhalinyaradaasi ka koobnaayeen 8 qof waxay yiraahdeen walaal shuqbaaba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yiraahdeen biyaa la hadlaynaa shuqbaaba markaas ku yiri haa waa diyaar busti aqoon ab u lahaa waxaa dhacday in la yiraahdo brother waxaa rabaa inaan kula hadlo oo kulkulba aan kula hadlo kala hadla arinka sharma boy iyo waxyaabo ku saabsan waxaa yiri brother diyaar waay waxuu kaba qabi waxaa dhacday dhalinyartii inaan u tago markaan u tago inay gaari ii gashtaan oo yiraahdaan brother inta ku soo wada hadlaynaa inabad waxay anigoo baabuurka ku sii jiro waxaa liigu korwacay nik la yiraahdo axmed rashiid markii liigu wacay waxay yiraahdeen intee joogtaa waa ku imaanaynaa anigu waxaa is yiri haddii aad gabatid ama haddii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiile ah maadaama aad dambi lahayn because axmed rashiid wuxuu howshiisa ay tahay inuu dilo ragga tuugada ah ragga wax dhaco ragga doorada wato iyo ragga biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani mana ku jiri waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartii markaas markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaaribeen la dhaho Jam Street alxayaat dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin laygu qabto mid ka mid ah wajiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan u gegsan waayay aan gacan u qaaday oo aan isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waa la iskiigu kaytay dooriyaa la soo baxay toori markii la soo baxay aniga markii waxaan waa istaagay oo waan isdajiyay waa la iskiigu kaytay markaan arkay in gacaqaad badan la igu sameeynaayo waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sidii ragtirimo ah waxaan isiri brother waa dhibatay intaan la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa la iga badiyay maadaama la iga badnaa waxaan noqday geesi garab waayay oo mataqaanayo weel iska saari waayay kadib waxaa dhacday in oo mataqaana baabuurka markay gistaan ayagoo hanjamaad iyo wax walba wadaan iyo ribaaxshi iyo gacan qaad wax walba waxaa dhacday inay dhahaan yar la yiraahdo cadaan model iyo inta majeerteelaaba dhan waxaa balan waa inaa meel saaro oo magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yiraahdeen adigoo lama jeerteen ahayn waxaad majeerteen oo daba dhaqlaynaysid waxaa tahay daba dhilf majeerteen waxay ahaayeen dad awooyaasheena xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacaqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka axmed rashiid ahaa markii axmed rashiid la ii geeyey inta axmed rashiid la ii geeyey ka hor baabuurkii intay igu wadeen hajabaad badan ay igu wadeen waxay yiraahdeen waxaa next oo kugu xijireenaa ninka la yiraahdo cunaan model maadaama uu yahay majarteen marka waxaa dhacday ina ay soo wareejiyaan askari la ii geeyo askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad waa lii dhirbaaxayey waa lii feerayey kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo kadib in la ii geeyo ninkii ahaa axmed rashiid markii la ii geeyey wuxuu yiri wuu ka naaxay wejigayga iyo dhaawacay saaran wuxuu yiri anigii raalli kama ihi waxay soo wacday maamada hooyada laakiin raalli kama iyo wax lagugu sameeyey waxaa weydiiyey haddii aad raalli ka ahayn maxaa kugu kalifay inaad mataqaanayo aad ii soo adeegsatid dhalinyartaasi adigoo awood u laha inaad ii imaadid oo aad ila hadashid wuxuu yiri waa ka xumaayay waxaa u malaynaya inay ii keenayeen dhalinyartaani waa dhalinyaro oo ahaa jiri super power waa dhalinyaro oo mataqaanaa intii la laayay kasoo xirtay waxaana la laayay ay ahayd darta qabiil darteeda waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog iyo gumaad iyo mataqaanaa qawac
dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xad dhaaf ah, awooddaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen magaalkani ogaadeen ka taliyaan ani ahay daba dhilif ma jarteen, maadaama aan gabar ma jarteen wax la sameynaayo, aan wax la jilaayo, aan muuqaal la duubaayo. marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen sharmaboy iyo waxyaabaha ku xilisay inay igu soo ogaan ama ay dhahaan toori ayaad wadataa, toori ayaad igu dishay. ninka waxaa dhacday kadib inay dhahaan toori ayaad dadka ku dishaay ama toori ayaad wadataa. waxay yidhaahdeen calaamodel iyo dhalinyaro oo asaga dabaraacsan haddii nabad ku noolaadaa magaalkan anaga rag marihin. waxaa dhacday in axmed rashiidkii uu idhaho waa ka xumaayay waxyaabaha falkufooshu lagugu dhibay markii la dhaawacay, lai jugeeyey, wejigayga dhaawaca lai saaray, waxba iima taraysa raalloqo, waxbana iima tarayso wax la iigu sameeyey. ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo sharmaboy wuxuu waxaan u sameynayaa views darteeda, wuxuu waxaan u sameynayaa in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo. aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal, aniga ma baqaay, waxaa ballan qaadayaa, waxaa ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilanayo, haddii aan samaynina hooyaday xakiimo aadan faarax oo siday igu soo korisaan aqoon u leeyahay ayay ka sinistaa haddii aan maanta aarsanin. daawadayaasheeda qeybaha qadirinta mudan, dhibaatadaani waxay ii soo martay oo lala iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay. anigana marnaba kama leexanay inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda, mana ka baqaay mana ka gabanaay. xabada haddii oo mataqaana igu taalo 20 xabo la igu tiriyo, waxaan u dhimanayaa xaqa, waxaan u dhimanayaa cadaaladda. marka asxaabay dhalinyarta kaleeto loo soo socdo waxaan leeyahay ayagoona hadlin ayaa loo socdaa, is ilaaliya mataqaanay cadaaladna waa u baahanahay. soomaaliya haddii aan xishmad iyo mataqaanay wax walba aad iga haysid, aan hal maalin kaa qosliyey, aan hal maalin kaa farxiyey, tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen, inaad iga farxisid, inaad waxaan doonayaa aad ii banaan baxaan ii istaagaan. taasi waxaa waaye waa baryo aa idinka baryayahay. waxaa ballan qaadayaa inti waxa igu soo gaarsiiyey dhaawac inta i gaarsiiyey haddii aana ka aarsanin waxaan isku bedelanayaa naag naasa leh. waxaana mataqaanaa ilaahay hortiisa aan ku dhaaranaya haddii aan ka aarsan waayo ilaahay inuu cadaabo jahima salkeeda imari, ilaahu cadaabo jahanama salkeeda imari haddii aan aarsan waayo. aad iyo aada u mahadsan tahay.